qaba oo samakaaba hadday maqlayaan iyo niman xujeeya oo subeer celiyo arabkuna wax ka dabkuru ayaa niman reer magana iska galayba niman reer magana markay galeen ayay waxna ku kala dhinteen waxna kala qaadeen geel iyo lo iyo adhiba waxbay kala qaadeen afkii baa qaldamay afkii markuu qaldamay ayaa dabeeta aniga waxa ii dheereed waxaasoo dhan geelashii markii ay qaxeen ee beeshii meeshii wada taalay la kala qaxay hadda ninkaygaasi markaasumaan gaadhiba ka degayba ee geelashii kala qaxeen een anigu geelayagii markaa u tegeen aan la joogo dhowr cisho mooji 3-4 waxaan joogayba ee afkii qaldamay hadda waa dhiyo meesha la yidhaha dhiyo ninkii garanaya nin kale anigu sheegi maaye yoo caale meel la yidhaha yo hawdkaas weeyaano dhagax buur agteedaa weeye iyo meeshaasaa loo sii maraa hundaha marka lagu sii socdaa laga galaaba afkii baa qaldamay xasan sheekh maxamuudow geelashii oo dhan baa dabeetana qaxay nirgii baa dabeetna la raaciyey 2 halaad oo dhalay oo aanu dabeeta annagu leenahay ayay nirgii u socon waayey xiladaada ilaahay bi halkan muuse beer yaro nin habar jeclaa oo ka qaaday ayuu hala yaro daasad le muuse geegeeya waan la yaabaa 80 halaadeen wadini baa 80 bay dhaafeen raggii wixii qoryaa sitiina way geeli bay xagga u qaxiyey xabadina way socotaa waa lagu kala qaxay meeshii lix jecladuna waa balaayo dee waxa weeye 2 halaadoo dhalay oo nirgihu ayna markaa u socod baranin oo aayar soconayaan ayaa la yidhi war labadiina halaad baaba waa kuwaasi ama ku dhimo ama ha ku dhiman war qorigaysiya baan ku candhala baan qaatay bal libankan anigu wax laayay ma yihi araba laayeego anigu subeer celi iyo baa istilay niman reer magana anigu baabulahi baan iska hayaa hadda garo afkii baa qaldamay hadda garo haddaba ninkan ogaadeena reer isaa ma garanayaa baabulahi waa maya wuxuu diidayaa isagu idoor wax la yiraahdo uu buu diidayaa ilaah kale ma arkaba wax kale uu arkayaa ma jiro sidii hooyadaa ku dhashay ayayna hawle ku iman haruubkii aabaha ku lisaan xasan sheekh maxamuudow haysataa wali iyo nimankiina mucaaradki dagaal bayna garanay nimankii reer magan ayaa iyagoo saa u yaacaya dabeetana waxay deydeyaan nimankii baa la is eriyaday oo anigu labadaydii halaad baan koonahan yar soo mariyado candalaabkaygina waan sitaayo giddiga habeenkii oo dhan intoo layga qaxay ayaan giddiga habeenkii intoon xero yar sidaa u geliyo baan difaac meel kaga jiri waryaa ilaahay yaqaan dab iima shidna waxba iima shidna labadaydii halaad halkani midna yurub baa la oran jiray waaba yurubtan aan joogaa baan ugu magac daray midna waxa la oran jiray in wanaag baa la oran jiray wanaag iyo dee yurubna dee nin ka tegaya ma yihi oo ka dhaqaaqaya ilaa laygu dilo oo way garanaysaa waxay dadka kale caruurahay dhalaan ayay cadal u dhoofshaan ciidagale nimaan geel lahayn waa cirka u tuur ayaan ahayoo labadan halaad hooyaday bay ka tahay haddii jarmal yimaado oo ruush yimaado oo talyaani yimaado iyadoo laygu dilo mooye inaanan ka dhaqaaqayn soomaaliyiin geela waa jecesha ogaadayna ka daran anna ka darin nin garxaaji samaanayo in daawud garxaajisa oo ciidagalaha oo wale iyo bille iyo tallay ka tahay inaan labada halaad ka dhaqaaqo afkii baa qaldamay oo gabalkii baa isla dhacay dim bal hadda dhegayso arabkiina halkaasay ka baxeen oo geelashoodii dib bay u qaxiyeen kuwii kalena dib bay u qaxiyeen baabiyabaa isku soo hadhay reer magan war yaa ilaahay yaqaanoo nimanka reer magan haddaba waxaan markaa u baahnaa wax reer magan iigu sheega war baabulaahi waa nin garxajsa ee arab ma aha oo arabkiidii laayay maaha oo iyagu miyay yeelayaan waxa arab soo imaadeen ma nihinoo isku isaaq ma nihinoo isku idoor ma nihin balaag habeen dhan baan arab u xidhnaa aabahoodna calaab habeen dhan baan arab u xidhnaa balka war habeen dhan baan arab gaad ugu jiray dadtood sida iska ilaalinaya godobtoodii markaasuu muusena doonayaa inankiisa inuu godob geliyo maad u malayn intood godob ka gasho xasan dalab ood ka gasho buurta kala jeexan godob ood ka gasho ummadda godob inaad inankaa kale xidiga ku toli oo dadka aad godob ka gasho maad u malayn ballanka ilaahay iyo barranka rasuul isagaa u qoolan oo anigaba arab baa lay dili gaaray anigaba saw ka reer magan oo dhabe ay deydayaan waxay doonay ila nimay arag labadii halaad nimayo waan soo dalandeliyey markuu waagi baryey aayir baan soo dalandeliyey ma hadlaayo juuq ma odhanaayo qorigayga dhuunta iyo beeltamaanku labadaba waan ka furay waxaan iska eegayaa un reer isaaq iyo reer magan dihin iyo in hashii in yurub iyo hashii dee in wanaagna dee kama tegayo nimankan wada soconnaa nimanaan maabtino geel isu kaaya jiri buhaa iyaguna intii kale ayay dee qaxiyeen labadaydan halaadna dee ka tegi maayo waa labadii halaaday raayir xaggan dee uga tagaa
aayir baan dabadna soo diladiliyo casarkiiba gabalkiiba meel haddana casarkiibay noqota subaxii oo dhan baan soo wadi nirgii baa iga daalay haddana meel yaroo kalaan keenay war adigu waxba yaan hadal idinku daalinayna reer baan dabadna ku soo baxay ari baan ku soo baxay anigoo ta iyo taaba haadhadee reer magan uu iska eegayo wariya ilaahay shimbirtiisa qadhabale wallaahi wabilaahi watallahi war reer saaqay abhood wallaahi waa iyagii qorigeyga inuu beetibaa ku furayay baa wallaahi waa iyagii ashaddaasaan haya arigii bay inan igaga soo dhex baxdo inaad qolomaad tihiin baan idhi soomaaliduna dhaqan bay leedahay inantiibaa dabeetana igu tiri waxaanu nahay reer garxajisa oo abakar muuse oo ba'ayuuba hadda ba'ayuub markay tiri baan ku wuri jow caawin baan badbaaday dee ba'ayuubna waa annaga ba'ayuuba haa naa caawin baan badbaaday baan ku wuri mise arigii baan inantii la soo raaciyey intuu laba halaad ka yimi ilani rageeyinayaan baan anugu gabadhii baan waraystay oo inantii baan waraysto waxay tiri war geelashii oo dhan meeshii waa laysku dilay rag baa ku dhintay geelayga xaggan uu qaxay qoladii kale xaggan uu qaxay dabeedna maxaa meesha waxa yaalla labadan cole is eryanaya baabkan labada halaad ku soo haray iyo wixii ay arkaan baday way marinayaanu iyaga reer isaaq waxay diidayaan wuxuu doora dabkana arab baa shiday oo dooda allabi hadday maqlayaan arab baa shiday bal hadda dhegeyso waxa sheekada igu kalifay adigu soo dhammaadayo reerkii garta labadii halaad reerkii keena halkii baan haddana difaac ka galay galabtii waxa jooga ari keliya iyo dumar keliya jooga iyo dhowr kuray markaasaan ku war halaha xareeyo halkaasaan difaac ka gelayaay anaa ba'ayuubta iyo labadayda halaad iyo waxaba ilaalinayee ila wax nina anaa joogay reerkaasi yuu haabaad u malaynaysaa ma garanaysaan wasiirka siinaanyo dowladdiisii wasiirkii caafimaadka ee doctor xuseen xoog la odhan jiray wasiirkii caafimaadkii xuseen xoog ee ba'ayuub ima maxamed reerkoodu reerka doctorka iyo reerkooda ilaahay keenay dee halkii baan dabeetana labadii halaad kaga tago markaasaan war halkaa baltaa joogaano galabtii baan halkiina difaaca ka galay waxaan sheekadaa ooga socdaa ilaahay kala qabooji wixiiyo nimankii reer maganna maan arag ogaadeenna alla igama daba keenin isaaqii maan arag wixii dambooy eryanaya maan arag difaacaygana halkiin baan ku jiray nirgii markay ii adkaadeen umaan meeshii ka soo guuray una markaasuma dabeetana meeshii loo qaxay aan geeli keenay dee anigoo wada oo nabad qaba oon ogaadeenna idili reer maganna idili nabadda waxa la yidhaahda marka maxaan u baahnaa